السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنتهاي الحمد لله أنا وفي عناهاي أذيقنا عاف ماذا كوريجينا أنت حنوصل إلهي عافي أنت لمتني إلهي ونحرسته. هل كان وأكرم أونلاين كوليدج أنا كان وحنا أستاذ سونامي مقال كان وحن قلوب ذاك دونا إن شاء الله لبضع عوان وكلا رياكشنات أي سمين الكحوليسكا يسلم مده الكحوليسك وحياة الله استعماله الكحوليسكا إيجو reactionada kuwii hore kuwa aan soo qaadanay qaar kala mid yihiin reactionadooda waxa kamid ah reactionka ay sameeyaan ama falgalka ay sameeyaan waxa kamid ah falgalka loo yaqaan combustion reaction ama combustion of alcohols ayaga waxa u soo kordhayo oxidation reaction bay sameeyaan wa imma dehydration reaction marka alcoholisku waxay reaction sameeyaan reactionku saddex qaybood noqonaya waa combustion reaction سلمي ده waxay sameeyaan oxidation reaction iyo waxay sameeyaan dehydration reaction saddexda bay sameeyaan combustion reaction ka sida caadiga ah in kuwa kala ku soo qaadanay way oo inuu soo baxo carbon dioxide iyo vapor water soo baxaya biyo oo uumi ah dhalanaya kuleelna uu imaanaya kaasina waxa loo isticmaali karaa shidaal ahaan baa loo isticmaali karaa okay fiiri marka waxa nooga horeeyo combustion reaction baa nooga horeeyo marka alcoholiska maxaa la sameeyaa alcohola waxa lagu darayaa methanola waxa lagu darayaa sufficient oxygen tusaale ahaan buugan wuxuu leeyahay laba carbon CH and CH3OH buu leeyahay CH3OH okay kana marka wuxuu sameeynaa biyo ku daraa marka oxygen gas oo ku dara oo sufficient ah wuxuu ku daraa saddex oxygen gas oo ku dara hadduu saddex oxygen gas dara marka maxaa soo baxaya marka meeshan waxa dhalanaya carbon dioxide baa dhalanaya waxa dhalanaya laba carbon dioxide plus waxa dhalanaya biyo iyo waxa dhalanaya biyo ayaa dhalanaya 4 molecule oo biyo dhalanaysa plus 4 molecule oo biyo ah xagan waxa imaanaya kuleel baa la sii deynaya waxaan taaganahay wili meeshii combustion reaction kuwa inay sameeyaan oo alcoholkii la qabtay lagu daray oxygen ku filan kadib waxa soo baxday carbon dioxide iyo waxa soo baxay iyo kuleel ayaa dhashay marka qaanuunka reaction labaad ay sameeyaan waxa waa oxidation reaction marka buuga si uu kala qaadaya marka wuxuu kala qaadaya primary wuxuu kala qaadaya secondary iyo tertiary uu kala qaadaya marka kaas waxaan rabaa marka inaan isla fahanno oxidation reaction ama one primary aan ku bilaawno marka ugu horeysa primary-ga fiiri marka primary-ga waa kana wuxuu leeyahay primary alcoholiska ama wuxuu leeyahay one prime alcoholiska ayaa marka hore la oxidize gareynaya waa la oxidize gareynaya oo aldehyde laga dhigaya marka koowaad marka laga dhigo aldehyde marka waxa la sameeynaa aldehyde kiya la si oxidize gareynaya asagana aldehyde kiya waxa laga dhigaya carboxylic acid baa laga dhigaya maxaa la sameeynaya marka waxa la sameeynaya hal carbon hydrogen bond ama laba carbon hydrogen bond ayaa waxa lagu bedelaya carbon O bond isa lagu bedelaya mujida kan waa marka ugu horeysa waxa waaye waxaan u soconaa reaction ka alcohol ay sameynaysan baranayna one prime maxaa dhacay alcoholiska marka hore waxa laga dhigayaa aldehyde aldehyde kiya waxa laga dhigayaa carboxylic acid marka laga dhigayo 1 carbon 1 CH bond ama laba la bixinaya ayaa la saaraya waxa lagu bedelayaa marka CO bond lagu bedelayaa sawirka marka waa u jeedaa marka ugu horeysa replace 1 carbon hydrogen bond by waxa lagu bedelay marka 1 carbon O bond lagu bedelay marka hore waxaan haysanay alcohol oo 1 prime ah waa la oxidize gareeyay waxa laga dhigay aldehyde kiya la oxidize gareeyay waxa laga dhigay carboxylic acid mujida okay taa waxa marka primary aan joognaa secondary-ga fiiri marka secondary-gana maxaa la sameeynaya alcoholiska la qabanaa ketone baa laga dhigaya ayadoo hal carbon H bond la bedelayo oo loo bedelayo CO loo bedelayo fiiri marka general reaction ka waxaan haysanaa 2 prime alcohol aan haysanaa oo 2 propanol ah
waa la bedelay marka waa la oxidize gareeyay waxaa laga dhigay acetone baa laga dhigay oo ah ketone baa la geeyay. Okay, marka xigta tertiary-gana fiiri asagana waa kana tertiary-ga tertiary alcohol-ka fiiri isaga wax H atom ah ma lahan kaarboonka OH ku dhagan sidaa daraadeeda wax la oxidize gareyn karo ma jirtaba wax H maadaama uusan lahayn lama oxidize gareyn karo oo waa kaas isku dhiskiisa fiiri 3 prime alcohols waa iyaguna. Okay, xagga aan kaga tagna marka sawiradaasi fiiri marka qaybtan fiiri alcoholadu are dehydrated waxaa laga saarayaa hydrationka laga saaraya water laga saaraya aldehyde alcoholkii la dehydrate gareenaya alkina laga dhigaya marka laga dhigayana maxaa la isticmaalayaa sulfuric acid lagu gubaya marka inta lagu gubi jiro dehydrationka maxaa dhacaya H-ka iyo OH-ka oo ku dhagan adjacent carbon atoms-ka labada carbon atom ee is haysta ayaa la remove gareynaya marka la remove gareeyo waxaa lagu bedelayaa carbon double bond sameysmaya marka meesha ma isla fahmin dehydration baa la sameynayaa markii la sameynayo waxaa qayb looga dhigayaa sulfuric acid dehydration intuu socdo H-ka iyo OH-ka ilaan H iyo OH macnaha biyo waa mooho labadan H-ka iyo OH-ka oo ku dhagan labada adjacent carbon ilaan midna wuxuu ku dhigayaa carbonkan midna wuxuu ku dhigayaa carbonka kale moogta labadan xabaa marka foqaysa waay ayagaa la saarayaa waa la saarayaa kadib waxaa laga dhigaa double bond meesha ka abuurmaya way soo u sameynaa marka buuga soo u sameehay fiireena muxuu sameeyay fiiri buuga hadda wuxuu sameeyay laba carbon caadi soo qaatay xagaana wuxuu kaga xiray OH xagaana wuxuu kaga xiray H mid labada H. Okay, carbonkan saddex sida caadiga lahaa saddex laba kasi kana saddexdiisa caadi u sii meesha marka waxaa la sameynaa H-kan iyo OH-kan la bixinaa marka H-kaas iyo OH-ka marka la bixiyo waa la gubaa sama la kuleenaya marka la kuleenayo waxaa la isticmaalayaa sulfuric-ga la isticmaalaa marka H-kan iyo OH-kan hadii la bixiyo maxaa dhalanaya marka ethylene say ku imaanaysaa double bond xagan waxaa dhacaya laba H xagan waa kana waa kaas marka tana waxaa la dhahaa marka ethylene wajida meesha marka waxaa banaanka loo saaray marka banaanka waxaa loo saaray H4O ee banaanka la geeyay marka maxaa ujeednaa reactionada marka waxaa kamid ah dehydration ayaa kamid ah oo ah in labada adjacent OH-ka iyo H-ka in la remove gareeyo meeshaan laga dhaliyo waxa loo yaqaano double bond. Okay, markaana waxaan aadaynaa qaybta labaad ee u dambeysay alcoholska use of alcohols and aad doonaa markaana waxaan qaadanaynaa isticmaalka alcoholska aad waxa u fiicnaan lahayd inuu alcoholska si guud uga hadlo ayaa wanaagsanaan lahayd laakiin hal ayuu u soo qaatay halkii uu buugu u soo qaatay ayaan qaadanaynaa insha Allah. Ethanolka has countless applications isticmaalo aan tiro lagu gaarin ayay leedahay ama aad baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa solvent ahaan dareer ahaan baa loo isticmaalaa oo kiimikaalada organiga ah loo isticmaalo mar labaade as a start compound sidoo kalena waxaa loo isticmaalaa sida isku dhis bilow u ah for the manufacture sameynta of dyes ee rangiga marka la sameynayana bar bilow u ah synthetic drugs daawooyinka la farsameeyayna isku dhis bar bilow u ah oo kale ayaa loo isticmaalaa way cosmetics aan ka marnayn sidoo kale cosmeticska ayagana waxyaabahan la isku carfiyo oo idil iyaguna markii la sameynayo ethanol bar bilow ayuu u yahay compound-kaas isaga ah inta kaliya ku eg tahay maya ethanolku waxa waaye also xitaa a constituent waa qayb of alcoholic beverage cabitaanada alcoholka ah qayb ka mid ahna ethanol ayaa ku jirta we oo waatan soo sheegnay wine all beer khamra la sheego oo idil ethanol baa ku jira waatii aan dhahnay methanolka iyadu
waa toxic oo aadamiga dhib ayay u leedahay. dooska haddii la yarahay camoolnimay leedahay, haddii la badiyan dhimasho ayay leedahay. marka ethanolka sidoo kale waxay qayb ka tahay cabitaanada la cabo ayay qayb ka tahay. ethanolka is used waa la isticmaalaa as a gasoline, sida waxaa loo isticmaalaa basiin ahaan. as a gasoline additive waxaa loo isticmaalaa sida kuwa basiinka lagu daro oo kale loo isticmaalaa. since maadaama ethanolku readily combusts uu si degdeg ah u gubanayo to form soo u sameeyo carbon dioxide and water soo u sameeyo with isagoo sii deynaya the release of energy, isagoo tamar sii deynaya. iyagoo tamar sii deynayana sidoo kale maadaama ay sameynayaan gubasho ay sameynayaan, si la mid ah ethanolka gasoline additive ahaan ayaa loo isticmaalaa. xaggaa marka waxaan kaga imaanay ethanol. methanolka bal fiiri isagana it's used as waxaa loo isticmaalaa as a solvent, dareere mile ahaan ayaa loo isticmaalaa. iyo antifreeze waxaa looga hortagaa barafoowida ayaa looga hortagaa oo for car radiators raytoorayaasha maaragta oo baabuurka wadamada sida wadamada ma aragtaayo oo barafka da oo kale, wadamada oo kale way isticmaalaan antifreeze oo kale ayay u isticmaalaan si uusan u barafoowin raytooraha. and also xitaa can be used waxaa loo isticmaali karaa as fuel for cars, xitaa shidaal ahaana loo isticmaali karaa oo baabuurta ay maaragtaa isticmaalaan. methanolka is a useful solvent, waa mile oo ma aragtaayo waxtar leh an starting material iyo waa walax barbilow u ah synthetic of plastics. marka la sameynayo caagaga ama bacaha marka la sameynayo waxay qayb ka tahay qaybta koowaad ayay kasoo galaysaa methanolka. mar kale borobanol waxaa la yidhahdaa is the major component of wrapping alcohol. waa qaybta ugu weyn ee wrapping alcoholka ah, qaybta ugu weyn borobanol wey. wrapping alcohol marka alcoholka wax lagu xoqo, alcoholada wax lagu xoqo oo wax lagu tiro waa mid ugu horeysa wey. when goorta oo rubbed on the skin oo shay maqaarkiisa ama shay dushiisa lagu xoqo borobanolka, it evaporates readily, si degdeg ah ama si dhaqso ah ayay ku uumiyoobaysaa. producing ayada oo soo saareysa a pleasant cooling sensation, dareen udug oo qabooban ayadoo soo saareysa. borobanol is used waxaa loo isticmaalaa to clean in lagu nadiifiyo skin, in maqaarka lagu nadiifiyo oo antigerm ahaan ayaa loo isticmaalaa before medical procedures, intii aan hanaan daweyn la aadin. tusaale ahaan toliig intaan la aadin oo kale waa la marinayaa meeshii waa lagu jeermis dilayaa. iyo intaa kaliya ku eg tahay maya to sterilize, in sidoo kale lagu jeermi dilo medical instruments, qalabka caafimaadkana waa lagu jeermis dilaa. marka borobanol waxay qayb ka tahay in yacnaa waxaan antigerms wax lagu tirtiro oo kale, si la mid ah waxay sameysaa pleasant cooling sensation ayay sameysaa. waaye aan kusii socona marka ethylene waxaa noo hartay glycerol. qaybtaana kasii wadeynaa marka ethylene iyo glycerol. haddaynu ku horumarno ethylene oo kale, ethylene wuxuu leeyahay is a major component of antifreeze, waxa barafoowida looga hortago mideeda ugu weyn wayuu leeyahay glycerolka. its sweet testing, dhadhankeeda waa macyahay but extremely toxic, aaday laakiin sun u tahay. ethylene glycol is a starting material, waa walaxda lagu bilaabo in the synthesis sameynta of synthetic fibers ee dumaha la farsameeyo ee gacan ku sameyska ah, such as sida dacron oo kale, dunto dharka lagu tashto oo kale. marka la sameynayo waxa ugu horeeya ee la isticmaalo waxa waaye ethylene glycol.
glycerol is a triol waa horta iyada glycerol marka la dhaho waa triol oo waxaa ku dhegan 3 OH aa ku dhegan used waa la isticmaalaa in waxaa loo isticmaalaa lotions bamaatooyinka kareemyada ayaa loo isticmaalaa liquid soap saabuunta dareeraha oo kale and shaving cream iyo maaragtay kareemiska oo lagu xirto garka ha ahaado ama shaaribka ha ahaado lagu xirtona waa loo isticmaalaa it's a sweet way dhadhan ahaan sweet testing dhadhan ahaan macaan waaye and non toxic sunna ma ahan it is 3 OH groups saddexdan OH group maadaama triol ay tahay saddexda OH group ay leedahayna waxay u ogolaanayaan ama waxay sameynayaan hydrogen bound dabarkooda hydrogen with water dabarkooda hydrogen wuxuu dabar la sameysanayaa biyuhu dabar la sameysan karaya biyuhu dabar la sameysana so sidaa daraadeeda it helps waxay ka caawinaysaa saddexdan OH in ay biyo qabsadaan waxay ka celinaysaa marka to retain moisture inay qoyaan ahaadaan ayay markaasi ka celinaysaa oo ay markaas ay u sahlaysaa saddexda OH ay leeyihiin 3 molecule kala biyo ku qabsan karaan aan biyo ku dhagsan karaan marka in bamaatadaas ama kareemkaas mar walba ay khaleel ay macnaa ay ahaato mid qoyaan ah waxa u sahlaya saddexda OH ay dabar kula sameysan karto biyaha in this productdan laga sameeyo triolka waxa waaye always inay qoyaan ahaadaan waxaa qayb ka naqanaya OH-daas waxay ku qabsan karaan